kusoo dhawow qaybta toddobaad ee diiwaanka mahad podcast. diiwaanka mahad waa podcast aan kaga sheekeeyo kuna soo koobo qoraaladeyda. waxaan diiradda ku saaraa waa aragnimadeeda nolosha iyo magaalooyinka aan u safro, kuwaas aan inta badan kaga faalloodo blogayga. qaybtan waxaan kusoo koobayaa blog aan daawacay bishii December ee sanadkii 2025 oo aan uga hadlay safar aan ku tagay magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar. waxaan martiqaad ka helay madasha Dooxa 20 November ee 2025 si aan uga qayb galo shirka 23aad ee madasha Dooxa oo lagu qabtay December 6 ilaa 7 2025 magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar. waxaan si gaar ah la igu cazumay inaan ka hadlo kulan ku saabsan dowlad dhiska Soomaaliya. waxay ahayd fursad naadir ah inaan noqdo dadka ka hadlaya madasha markii iigu horeysay oo aan ka qayb galayo madasha Dooxa. waxaan raacay diyaaradda Ethiopian Airlines gegada diyaaradaha ee Addis Ababa. waxaan kula kulmay Cumar Maxmuud oo xilmibaare ka tirsan International Crisis Group kana mid ahaa qabanqaabiyaasha madasha looga hadlaya arrimaha Soomaaliya. wuxuu ii sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ka soo qayb gali doono madasha una khudbad furitaan ah ka jeedin doono kulanka gaarka ah ee arrimaha Soomaaliya looga hadlayo. waxaan ka soo degnay garoonka diyaaradaha ee Hamad International Airport 2 habeenimo. waxay ahayd markii iigu horeysay ee aan safar ku tago Qatar. waxaan markiiba aragnay oo gaadiid noo diyaariyay qabanqaabiyaasha madasha Dooxa oo ku sugnaa garoonka diyaaradaha. waxaa banaanka garoonka taagnaa darawallo u diyaarsan inay qaadaan dadka soo degaya. Soomaali kale oo ay ka mid yihiin ka qaybgalayaasha madasha Dooxa ayaa safarka nagu weheliyay. waxaan bilaabay inaan tijaabiyo luqadeyda Carabiga oo aan kula sheekaysto darawalkii gaariga. dhismayaasha dhaadheer iyo wadooyinka iftiinka badan oo aan sii marnay waxa aan qiyaas uga qaatay sida ay Dooxa u tahay magaalo casri ah oo aad u horumarsan. maalintii xigtay waxay ahayd Jimce. waxaan fursad u helay inaan magaalada aado. Dr. Afyare Cilmi oo nasiib wanaag aan isku hotel deganayn ayaa magaalada ii waday. waxaan ku tukanay salaada Jimcaha masjid ku dhex yaala mool weyn. kadib waxaan la qadeeyay Dr. Afyare Mursal Sanay oo agaasimaha fulinta ee Macadka Heritage iyo Anas oo ku nool kana shaqeeya magaalada Dooxa. waxaan ka sii sheekaysanay xiisana u qabnay madasha Dooxa iyo gaar ahaan kulanka looga hadlayo arrimaha Soomaaliya. waxaan tagnay xafiiska macluumaadka ee Sheraton Hotel halkaasoo aan ka soo qaatay kaarka madasha iyo sidoo kale kaar VIP ah ee xafladda furitaanka dadka ka qaybgalaya keliya la siinayay. marka la eego tirada badan ee ka qaybgalayaasha oo ahaa in ka badan 5,000 oo qof, xafladda furitaanka waxaa ka qayb qaadan karay keliya dad kooban. aniga maadaama aan ka mid ahaa dadka ka hadlaya madasha, waxaan fursad u helay inaan ka qayb galo xafladda furitaanka. waxaan imid waqti hore si aan meel fiican u fadhiisto. xafladda furitaanka ayaa bilaabatay 10kii subaxnimo waxayna socotay ilaa 30 daqiiqo. amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani, madaxweynayaal ay ka mid ahaayeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxweynaha Suuriya Ahmed Hussein Al-Sharaa iyo sidoo kale marti sharaf sarsare sida Hillary Clinton iyo Bill Gates ayaa ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay xafladda furitaanka. Bill Gates ayaa khudbad ka jeediyay xafladda furitaanka. waxa uuna ka hadlay shaqada mu'asasada Gates ay qabato iyo sidoo kale mashaariicda ay taageerto. mid ka mid ah hal abuurka madasha Dooxa oo si gaar ah ugu riyaaqay ayaa ahaa in abaalmarin la siiyo shakhsiyaadka iyo hay'adaha ka shaqeeya howlo geesinimo leh. sanadkan Dooxa Forum ayaa Alex Thier iyo Saad Muxseni siiyey abaalmarino ay ku mutaysteen ka qayb qaadashada horumarinta waxbarashada carruurta ee Falastiin iyo Afghanistan. waxaan abaalmarinadaas guddoonsiiyey amiirka dalka Qatar.
xafladii furitaanka kadib waxaa bilaabmay kulamo isbabar socda. maalintii ugu horreysay waxaan ka qayb galay dhowr kulan oo ay ka mid yihiin gorfayn ku saabsan dhexdhexaadinta wakhtiga kala guurka oo ay marti ku ahaayeen wasiiro arrimo dibadeedyo dalalka Qatar, Turkiya, Spain iyo Midowga Yurub. kulan kale oo xiiso lahaa oo aan ka qayb galay ayaa ahaa waraysi lala yeeshay madaxweynaha Suuriya Ahmed al-Sharaa. waxaa kale oo aan ka qayb galay madal looga hadlayay maalgelinta caafimaadka ee uu dadka ka hadlaya ka mid ahaa wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadam. madasha Dooxa waxay lahayd kulamo aan la duubayn oo ay ka qayb galayeen dadka lagu casuumay oo kaliya. waxaa la igu casuumay oo aan ka qayb galay kulan gaar ah oo looga hadlayay Yemen kadib xabajoojinta Gaza oo ay dadka ka hadlay ka mid ahaayeen ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Yemen iyo sidoo kale Dr. Cabdullaahi Bawasiir oo ah madaxweyne ku-xigeenka golaha hoggaanka madaxweynaha Presidential Leadership Council ee Yemen. kulanka looga hadlay arrimaha Soomaaliya ayaa dhacay subaxnimadii maalintii labaad. waxaan ahaa qofka kaliya ee Soomaali ah oo ka socday hay'ad aan dawli ahayn oo ka hadlay qol ay ka buuxaan mas'uuliyiin dawladeed. waxaan ka hadlay geedi socodka dawlad iska Soomaaliya. waxaan sharaxaad kooban ka bixiyay sababta horumarka dhinaca dawlad iska uu gaabis u yahay iyo talooyinka sidoo kale muhiimka u ah doorashooyinka. waxaan ugu dambeyn soo jeediyay talooyin ku saabsan sida beesha caalamka ay si wax ku ool ah u taageeri karaan Soomaaliya. kulanka waxaa khudbad ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya kadibna waxaa la guda galay ka doodista arrimaha amniga iyo doorashooyinka. madasha Dooxa waxay ahayd mid si heer sare ah loo agaasimay. shaashado waaweyn ayaa lagu soo bandhigay goobaha ay ka socdaan doodaha kala duwan iyo sidoo kale kulamada xiga. marka la eego heerka ka qaybgalayaasha, madasha Dooxa waxay abuurtay hadalhaynta warbaahinta caalamka. suxufiyiin caan ah sida Tucker Carlson, James Space oo ka tirsan Al Jazeera, Ravi oo ka tirsan Foreign Policy, Christine Ampor oo ka tirsan CNN ayaa dhexdhexaadinayay kulamo kala duwan. waraysiyada dadka lala yeeshay waxaa ka mid ahaa Hillary Clinton iyo wiilka uu dhalay Donald Trump ee Donald Trump Jr. maadaama ay dad ka badan 5,000 oo qof ka qayb galayeen madasha Dooxa, waxay abuurtay fursad ay ka qaybgalayaal badan isku bartaan kuna sheekaystaan. dad badan oo aan markii ugu horreysay la kulmay waxaa ka mid ahaa Alex Diwal oo ah cilmi-baare iyo sidoo kale agaasimaha fulinta ee hay'adda nabadda adduunka World Peace Foundation, Dr. Combort Ero oo ah madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee International Crisis Group, Itond Kakoma oo ah madaxweynaha iyo agaasimaha guud ee Interpeace, Ahmed Soliman oo ka tirsan Chatham House, Elizabeth oo madax ka ah macadka arrimaha caalamka ee Koonfur Afrika, iyo sidoo kale Kedrick Barnes oo ka tirsan FCDO, sidoo kalena horay u soo taageeray tifaftirna u sameeyay Somali Public Agenda horaantii 2018 oo ay ahayd markii ugu horreysay oo aan si falqafool ah u kulanno. Dr. Cabdullaahi Xuseen oo ku nool magaalada Dooxa ayaa igu wareejiyay magaalada, gaar ahaan magaaladii hore. waxaan ka wada hadalnay waxbarashada iyo cilmi-baarista Soomaaliya oo ay ku jiraan qaar ka mid ah cilmi-baarista uu ka sameeyay nidaamka waxbarashada Soomaaliya. waxaan kaloo aan habeen socod dheer la galay Dr. Afyare oo aan ka sheekaysan arrimaha Soomaaliya. waxaan marar kala duwan kireystay Uber, waxaana la yaabay sida uu qiimaha kirada u jabnaa. inkastoo aan Dooxa muddo kooban joogay, haddana waxaan fursad u helay inaan dad badan la kulmo. doodihii madasha Dooxa ayaa ahaa kuwa aad u tayo sarreeya. waxaan bogaadin mudan qabanqaabayaasha madasha Dooxa oo isku keenay in ka badan 5,000 oo qof. diiwaanka Mahad Podcast waxaa soo saara Mahad Waasuge. waad ku mahadsan tahay dhegaysiga qaybta 7. waa inoo mowduuc kale iyo qaybta xigta ee diiwaanka Mahad.